بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد waxaan sii wadanaynaa darsigeennii ku saabsanaa calculus 1. maanta waxaa qaadanaynaa darsiga ugu horeeya calculus 1 wixii muraajaca ahaa ee ku saabsanaa aljabra iyo trigonometry waan soo qaadanay, laakiin maanta waxaan ka bilaabaynaa bal darsiga ugu horeeya. darsiga ugu horeeya ee calculus 1 wuxuu ka hadlayaa limitka inta badanna waxyaabaha calculus inta badan ay ka hadasho ama ay calculus 1 lagu darso waxaa u badan limitka u badan. Okay, limitka muxuu yahay? limit sidiisaba waa xad. Mathalan, adaa inta ka tagay waxaad tagtay ay magaalada kuugu dhow, meeshaas aad tagtay waa limitkaagii laga bilaabo meesha ka tagtay ilaa iyo meesha tagtay. Okay, marka darsiga ugu horeeya aan qaadanayna wuxuu yahay definition of limits. Wuxuu yahay limitka, bal waxaan ka fahmaynaa insha Allah markaan galno graafkan meesha noogu sawiran ee meesha noogu yaalo. Waxaan ka fahmi doonaa bal limitka waxa uu yahay iyo sida uu loo dhigo. Okay, limitka hadda waxaa la yidhi meesha waxaa la yidhi waxaad heshaa limitka. waxaan helaynaa finding limits from the graph. graafkana waxaan ka soo saaraynaa bal limityada kuwa waxaa la yidhi waxaa heshaa horta qiimaha f1. marka qiimaha f1 hesho dana waxaa soo saartaa limitka fx markii x ay u dhowaanayso 1. b iyadan waxaa la weydiiyey, waxaa la yidhi f2 qiimihiisa hel, kadibna waxaa heshaa limitka fx markii x ay u dhowaanayso 2. c na waxaa la yidhi waxaa heshaa f3 marka ay limitka f3 hel, limitka fx markuu u dhowaanayo 3 na hel. Okay, saan ognahay haddaad aragto mathalan f1 oo kale sida hadda tan ay u qoran tahay, macnaheedu waxay ka dhigan tahay 1 kan waa x, because waa taqaanaan ffx x tan qiimaheeda lagu siiyo waxaa lagu yidhi waa 1. marka y maadaama ffx waxay la mid tahay sideedaba y. Okay, qiimaha y ee graafkan muxuu noqonayaa marka? taas waa su-aasha la weydiinayo. waxaa la yidhi 1 maadaama x hadduu 1 la mid yahay muxuu noqonayaa y maxay noqonaysaa? qiimaha y muxuu noqonayaa? bal marka graafka aan fiirino 1 markay x 1 la mid tahay waa inta. Okay, y na maxay la mid tahay 2 way la mid tahay sooma. meesha isaga imaadaan labadooda maxay tahay pointigaas waay sooma. labadooda waxay isugu yimaadaan pointigan. marka pointigan ama nuqdadan waxay noqonaysaa waa 1 oo x iyo 2 oo y x iyo y. markaas marka natiijada f1 markay tahay ff1 markay tahay waxay noqonaysaa 2. Okay, bal limitkii muxuu yahay marka? limitka waxaan fiirinayaa limitka sidiisaba waxaa la rabaa waa inuu isku xiran yahay sida hadda kan aan u jeedno oo kale uu isugu xiran yahay. Okay, limitka hadda markii dhankan laga tago oo loo socdo inta markaan ka imaado bidixda markaan ka imaado oo dhanka midigta u socdo saan u jeedno way isku wada xiran tahay. pointigii ahaa 1 iyo 2 y limitkeeda waxay noqonaysaa isla nafsi numberkii noqonaya wuxuu noqonayaa 2. waan fahnaan umaleynaya. waxaa la weydiiyey marka hore ff1 x markay 1 la mid tahay maxay y noqonaysaa? y waxay noqonaysaa 2. limitka markaad fiirinayso waxaad fiirinaysaa sida ay isugu xiran tahay. marka waxaan aragnaa isku xirnaanshaheeda meesha pointigii aan hadda aragnay oo number 2 ay isugu imanayeen 1 iyo 2 inuu isku wada xiran yahay markii labada dhinac laga fiiriyo. maadaama labada dhinac markii laga fiiriyo uu isku wada xiran yahay waxay noqonaysaa marka limitkiisana limitka ffx markii x ay u dhowaanayso 1 wuxuu noqonayaa 2. dad badan baa waxay isku khaldaan x ta qiimaheeda iyo y da qiimaheeda. hadda waxa lagu weydiinayo waa limitka
f of x muxuu noqonayaa x waa la yaqaana waa 1 meeshan waxaa lagu yiri 1 markii uu x ay u soo dhawaanayso yani macnaheedu waxay ka tarjumaysaa 1 markuu inta yahay dhankan marka looga yimaado iyo dhankan marka looga yimaado way u dhawaanaysaa qiimaha ugu dhow bay noqonaysaa dhankan marka looga yimaado waxay noqonaysaa 0.999 iyo dhankan marka laga yimaado waxay noqonaysaa 1.0001 marka waxaa laga wadaa markii ay labada dhinac ay isaga yimaadaan x ay labada dhinac isaga timaado ay 1 u soo dhawaato qiimaheeda y maxay noqonaysaa limitka y muxuu noqonayaa limitka y wuxuu noqonayaa taas number 2 okay tan kale aan u gudubno b waxaa la yidhi ff2 waxay tahay qiimaheeda ff2 waxaa fiirinaysaa mar walba 2 markii ay tahay nuqdada ay isaga yimaadaan maxay tahay x iyo y hadda markaad fiiriso number 2 x markay la mid tahay waa inta pointigan way kor markaa u socoto ha ku khaldin kan waxaadan ugu khaldayn waxaa ogaataa hadday daa'irada ama circleka uu open yahay circleka markuu open yahay waa maxadidna way lama yaqaano qiimahan wuxuu yahay meeshan ku jira marka lama sheegi karo lama dhihi karo markii ay f2 tahay waxay noqonaysaa qiimahaas lama dhihi karo lama garan karo marka maadaama aan qiimo la garan karin uu yahay kaas waxaad fiirinaysaa ma qiimo kala jiro kor fiiri ay point kala ma jiro pointigana jiro fiiri circlekan madowga mar hadduu madow yahay circleka uu madow ku daahsan yahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay x iyo y waxay isugu yimaadaan pointigan marka waxaan leenahay waxay la mid tahay ff2 waxay la mid tahay 5 wala fahmana ma leenahay kan lama yaqaano qiimahan wuxuu yahay waa open daa'iro furan way daa'iro furan mar hadday tahay lama garanayo ma xadidna waa meeshaas qiimahay tahay laakiin adiga waxaad fiirinaysaa point kale lagu siiyey hadduu point kale lagu siiyey uu jiro oo madow ah wuxuu noqonayaa qiimihii ff2 kaasuu noqonaya bal limitka aan fiirina marka waxaad ogaataa markaad qiimaha ff raadinayso iyo markaad limitka raadinaysa labay kala yihiin waan arkaynaa tanaan ku arkaynaa bal hadda fiiri ff2 waxay la mid tahay 5 laakiin limitka wuu ka duwanaan doonaa okay suu ugu duwan yahay limitka markaan fiirino 2 iyo intay isaga yimaada markaan hadda fiirino graph inta 2 markii dhankan ay kasoo socoto x marka inta kasoo socoto maxay u dhawaanaysaa meeshan nuqdadan furan ay usii dhawaanaysaa sooma intana marka laga fiiriyo dhanka kale ee midigta ah inta ay uga soo dhawaanaysaa markaas limit wuu jiraa limit oo labada side wuu jiraa marka waxaan leenahay limitka 2 limitka marka ffx markii x ay u dhawaanayso 2 wuxuu noqonayaa 3 maadaama ay isku xiran tahay maadaama ay baashas weli linekii uu socdo waxaan leenahay limitkii wuxuu noqonayaa markaas 3 limitkii muxuu noqonayaa 3 ha isku khaldin mar walba waxaad fiirisaa marka lagu diro qiimaha ff xt oo qiimaheedii lagu siiyey lagu yiraahdo y-dii soo saar mar haddii circleka open yahay ma heli kartid qiimihii macada oo wax waadixa ma laakiin waxaad ogaataa limitka waad heli kartaa limitka waxaad fiirinaysaa oo kaliya waana ku arki doonaa example kale aan ku arki doonaa limitka mar hadduu isku xiran yahay circleka openkiisa iyo xirnaanshihiisa shuqulkuma laana annaga waan sheegnay waxaa laga hadlayaa exactly qiimaha 1 ma aha ama qiimaha 2 ma aha laakiin waxaa laga hadlayaa dhawaanshaheeda intay u dhowdahay hadda 2dan waxay u dhawaanaysaa x waxay usoo dhawaanaysaa 1.999 dhankan kalena waxay uga soo dhawaanaysaa 2.00001 marka waxa laga hadlayo laga hadlayo limit ahaan exactly qiimaha ma waxa laga hadlayo waxa qiimahan inta uu soo dhawaanayo u soo jirsanay labada dhinacaad fiirinaysaa dhinacan uu ka soo dhawaaday dhinacan uu ka soo dhawaaday maadaama labada dhinac uu ka soo dhawaanayo there is limit jiro limitka markuu jiro waxaad fiirinaysaa adiga marka meesha ay isaga soo dhawaadeen labadooda oo ay aadka isaga soo dhawaadeen waa number 3 okay ff3 aan fiirinaya ff3 markaan fiirino x markay 3 tahay y maxay noqonaysaa ff3y
marka la fiiriyo meeshan qiimo cad kuma jiro, waa circle sidii hadda aan arkayno kale waa open circle mar hadday tahay ma taqaanid qiimihii wax kaloo noqdo kaloo laysiiyeyna marka tan waxaan leeyahay undefined okay laakiin limitkeeda aan fiiriyo limitkeeda muxuu yahay iyadana sida nafsi hadda aan sheegayno kale taad ku fiirinaysa limitka intana waa ka xiran yahay intana waa isaga xiran yihiin graafkii khadkii intana waa isaga xiran yahay intana waa isaga xiran yahay markaas waxay noqonaysaa meesha isugu imanayaan labadooda ee ugu dhow wuxuu noqonayaa 4 number 4 okay bal haddana cinwaankan kale aan fiirino cinwaankan muxuu yahay muxuu ka hadlayaa waa relationship between one side and two sides limits hadda waxaan ka soo hadalnay oo aan kor kaga hadalnay limitka labadiisa side ma kala qaadin one side left side iyo right side uma kala qaadin laakiin waxaan ka hadalnay toos numberka number 2 oo kale limitkiisa muxuu yahay saas oo kale ka hadal laakiin bal waxaan fiirinaynaa haddaan ka hadli doonaa oo cinwaankan uu khuseeyaa limitka labadiisa dhinac مثلا leftiga ama dhinaca bidix marka laga yimaado iyo marka laga yimaado dhanka midig marka laga yimaado bal muxuu noqonayaa limitka okay graafkan aan meeshan u jeedno waxaan haysanaa 2 points mid halkana iyo mid halkana يعني laba khad oo labada dhinac ka kala imanaya laakiin anaga hadda waxana laga rabo waxay tahay waa finding the flowing limits if they exist haddii la helayo ay jiraan bal limidiyada graafkan ayaana laga rabaa inaan soo saarno waxaana la weydiiyeyna waa saddexdan su'aalood ee ah kow inaan helno limitka x markay ay u dhowaanayso 2 gx maxay noqonaysaa hadda y-deena hadda gx waa gx wax la rabaa la qaataa fx gx kx laakiin inta badan waxa la isticmaalo waa ffx ama gfx okay laakiin waxaad ogaataa mar walba kan wuxuu la mid yahay y la mid yahay taas maskaxda ku hay okay يعني hadda waxa la raadinayo waxay tahay limitkii x markay u dhowaanaysa number 2 waxaana laga rabaa gx maxay noqonaysaa iyada runtii iyo su'aashana la weydiiyey waa taas marka saddex qaybood baana laga weydiiyey number 2 marka laga yimaado dhanka midig haddaad mar aragto dhanka bidix haddaad aragto minus korka ka saara number waxaa laga wadaa yani waxay ka macno tahay waxaa laga yimid dhankan midigta bidixda sorry baa laga yimid okay haddaad aragto iyadoo balaasana waxay tahay waxaa laga yimid 2 number 2 waxaa looga yimid dhanka midigta looga yimid taasay macno ka tahay haddaad aragto laakiin ayadoon midna saarnay waxay ka dhigan tahay number 2 naftirkiisa muxuu noqonayaa ffx ama gfx maxay noqonaysaa limitkeeda waa saddexdaas qaybood qaybta koowaad waxaan niri marka laga yimaado dhanka bidix oo minus kor ka saaran yahay limitkii muxuu noqonayaa intuu xadkii noqonayaa iyo marka kale oo ah marka looga yimaado dhanka midig marka looga yimaado xadkii muxuu noqonayaa iyo markii ayada naftirkeeda 2 number 2 naftirkeeda la fiiriyo limitkii ama xadkii muxuu noqonayaa may isku xiran tahay khad isku xiran ma yahay waa taas wax la fiirinayo wala fahmana maleenahay okay aan fiirino marka saan u soo saarayna okay bal aan fiirino qiimaha tan ugu horeysa y markay ka imanayso x markay ka imanayso bal mid ugu horeysa haddaan fiirino x markay dhanka bidix ka soo socoto oo 2 u soo dhowaanayso y maxay noqonaysaa gfx maxay noqonaysaa khadkan kor ka soo degayo bal fiir khadkan kor ka soo degayo wuxuu u soo socdo meesha labadooda isugu imanayaan maxaa waaye oo number 2 meesha ugu dambeysay ku istaagaysa maxay tahay waa 4 meesha isugu imanayaan maxaa waaye waa 4 sidaas awgeed marka limitka x markii ay ka imanayso dhanka bidix ay ka imanayso gfx waxay la mid noqonaysaa 4 meeshaasay ku istaagaysaa oo 4 taasay noqonaysaa okay bal ayadana haddaan fiirino dhanka midig markay ka timaado x markay dhanka midig itnayn uga timaado meesha say u soo socoto
waxay ku istaagaysaa soomaha say u soo socoto meesha 2 way afka saaraysaa. markay afka saarto number 2 qiimaha uu gfx uu noqonayo maxay tahay? waxay noqonaysaa meesha isugu labadooda pointigan ka dhexeeya waa 1 iyo 2 sooma. maadaama x 2 tahay ayadana y-di maxay noqonaysaa 1. okay, marka waxaan fiirinayaa markay 2 tahay dhankan iyo dhankan aan fiirin tay isugu imanayaan labadooda wax cad oo isugu imanayaan meesha ma jirto sooma. limit ay isugu yimaadaan lama hayo laana kanna waa number 4 labadii khad saas ay isu dhaafayaan sooma. haddii hadda lasii fogeeyo kan saas ay isu dhaafayaan marka waxay noqonaysaa marka y x limitkan hadda y waa does not exist maxaa yeelay sababta maxay tahay? labadan isku mid maba haba. labadan markii midigta ay ka imanayso iyo markii bidixda ka imanayso laba qiimo kala duwan waay. mar haddaa aragto labadooda qiimo ay kala duwanaadaan midigta iyo bidixda markay isaga imanayaan limitka number 2 does not exist. mararka qaar waa la iska soo gaabsadaa waxaa lagu qoraa dne saasaad ku qori kartaa. isaga wuxuu ku weydiiyey su-aasha marka horeba waa kan wuxuu ku yidhi if exist haddii la helayo ay meesha ay jirto soo saar. hadda waxaan ogaanay limitka markii laga imaado dhanka bidix inuu la mid yahay 4 marka laga yimaado dhanka bidixna uu la mid dhanka midig marka laga yimaadana uu la mid yahay 1. okay, bal example kan kale ugu dambaysiin doona videogeena maanta aad baan u dheeraynay bal aan fiirino. okay, kan waxaa graafkaasa u jeedno waxaana laga rabaa waxaan oo dhan. kan waxaa laga rabaa f1 qiimayaasha horta laga rabaa f1 3 iyo f2 iyo mid walba midigteeda iyo bidixdeeda limidyada ay noqonayso ffx ay noqonayso qiimayaasha yeelanayso oo mid walba laga rabo iyo ayaga naftirkooda limitka ay ff noqonayso. intaasoo dhan baa laga rabaa. marka mid midaan u fiirino f1 tan ugu horeysa f1 maxay la mid tahay? f1 markaan fiiriyo f1 x markay 1 la mid tahay y maxay noqonaysaa? bal meesha fiiri haddaaya tanoo kale soo aragna y waxay noqonaysaa waxaad fiirinaysaa waxaan sheegnay midii circleka furan yahay qiimaheeda maxduud maaha lama yaqaano marka shuqul kuma yeelanayso. waxaad fiirinaysaa noqdo kale hadday jirto. haddayna noqdo kale oo madow circleka uu xiran yahay aysan meesha oolin amaba khad saas u gudbayo uusan meesha oolin ama meesha uusan yaalin waxaa samaynaysaa waxaa qaadanaysaa waxaad leedahay undefined. haddii kale waxaad fiirinaysaa hadduu jiro number noqdo kale ama point kale hadduu jiro kaasaad marka meesha ku qoraysa. marka hadda waxaan aragnaa meeshan mid circlekeeda furan yahay iyo mid circlekeeda xiran yahay inay ku aadan yihiin 1 midna waa 2 midna waa 3. marka aniga keen qaadanaya labadan. kan circleka furan yahay waa undefined ma xadidna. kan laakiin kana xadidan oo labadooda pointi la yaqaanaa oo 3 iyo 1 marka waxay noqonaysaa ff1 waxay la mid noqonaysaa 3. okay, limitki markii la fiiriyo ff1 oo kale ama ffx marka lagu weydiinayo waxa lagu weydiinayo waxay tahay un kaliya pointigaas. maadaama x ay numberkaas tahay y maxay noqonaysaa qiimaheeda? waa intaas limit laguma weydiinayo. limitka marka lagu weydiinayo waa tan oo kale. marka waxaa lagu yiri marka laga yimaado marka limitkan waxaa lagu yiri limit x approaches 1 dhanka leftiga ama bidixda markay ka imanayso x markay uga soo dhawaanayso 1 ffx maxay noqonaysaa ama y qiimaheeda maxay noqonaysaa? okay, marka dhinacan midig uu ka soo degayo korka graafka saas uu uga soo degayo meesha marka soo istaagto meeshay ku kulmeen labadooda maxaa waaye waa 2. marka waxaan leenahay limitka markay x ay uga soo dhawaanayso 1 dhanka bidix ffx waxay la mid noqonaysaa 2. okay, waxaan fiirinaynaa hadda dhanka kale. dhanka kale waxaa la weydiiyey haddana limit x-ka limitku muxuu noqonayaa ffx markii x ay u soo dhawaanayso 1
dhanka midig markay uga soo dhawaanayso. Marka inta kasoo degto haddana korkan kale kasoo degto oo dhanka 1 u soo socoto, nuqtada isugu imanayaan haddana maxaa waaye waa 2. marka waxaan leeyahay limitka x markay dhanka midig uga soo dhawaanayso 1, y ama f(x) waxay la mid tahay 2. okay, waxaa la weydiiyey haddana marka limitka f(x) markii ay u soo dhawaanayso 1 iyadoona la fiirinaynin midig iyo bidix muxuu noqonayaa. marka limitka uu kaga soo dhawaanayo labada dhinac markaan fiirino, hadda waxaan sheegnay anaga circle-ka hadduu furan yahay wax naga khuseeya ma leh. taa markii lagu weydiiyey qiimaha y-da exactly muxuu yahay markii lagu dhawan baad sheegi kartaa oo dhihi kartaa ama waa undefined ama qiimaheedu waa saas. laakiin limit ahaan waxaan nidhi hadduu furan yahay iyo hadduu xiran yahay, hadduunan go-nayn waxba nagama gelin. hadduu marba xiriirsan yahay qiimahaasi kaasuu noqonaya. marka limitka f(x) markii x ay usoo dhawaanayso 1 wuxuu la mid yahay 2. okay, kan kaloo xiga waxaa waaye number 3. x markay usoo dhawaanayso, okay, x markay 3 tahay y maxay noqonaysaa? y waxay noqonaysaa meeshaanad fiirinaysaa graafka mar walba waxaa fiirinaysaa nuqtayaasha aad haysato. waxaan haysanaa meeshaan 2 nuqto, mid circle-ka furan yahay iyo mid circle-ka xiran yahay. midda circle-ka furan yahay waxaan nidhi waa undefined ma xadin. midda laakiin circle-ka uu madow yahay ama uu isku xiran yahay, uu isku darsan yahay, waxay noqonaysaa nidhi waa la garanayaa waa qiimo muxadada, kaasaana qiimaha ay ff3 yeelanayso ay noqonaysaa. okay, ff3 qiimaha ay yeelanayso maxay tahay? waa 2. waa number 2. okay, markii x laga yimaado tan hadda la weydiiyey maxay tahay? haddana waxaa la weydiinayaa limitka x markii ay u dhawaanayso 3 dhanka bidix maxay noqonaysaa? limitkii f(x) muxuu noqonayaa? haya kan kor suu u socda intuu ku joogsanaya circle-kan ama daa'iradan intay ku joogsanaysaa ku-aadka number 4 ay ku joogsanaysaa soo ma. marka waxay noqonaysaa marka limitka x markay u dhawaanayso 3 oo dhanka midigna dhanka bidixna uga soo dhawaanayso wuxuu la mid yahay 4. okay, waxaa la weydiiyey haddana limitka x markay u dhawaanayso 3 ayna uga soo dhawaanayso dhanka midig muxuu f(x) noqonayaa ama y ay noqonaysaa? waxaan fiirinayaa marka khadka mar walba ani khadadka leysiyaan fiirin. khadkan markuu inta kasoo uga soo dhawaanaya intuu ku istaagayaa oo uu ku aadan yahay number 1 sooma. number 1 uu ku aadan yahay sooma. marka muxuu noqonayaa? wuxuu la mid yahay number 1. okay, waxaa la weydiiyey haddana limitka f(x) markii x ay u dhawaanayso 3 iyadoon la fiirin, iyadoon dhanka midig iyo dhanka bidix waxoo dhan x 3 markay u dhawaanayso muxuu noqonayaa? kanoo kale haddaayaan hore usoo aragnay haddaad xasuusato. waa labadooda markay laba kala noqdaan khadadkii waxaa nidhi way isgudbayaan. mar hadday isgudbaan meesha limit oo 3 markii x ay u dhawaanayso ma jirto. marka maxay noqonaysaa taas? limitkaasita marka muxuu noqonayaa? kaasi wuxuu noqonayaa does not exist. yani ma jiro limit markaas aan sheegi karno dhihi karno x labada dhinac isaga imanaysaa oo labada dhinac laysaga soo dhawaanaya oo hal khaday isku yihiin ma jirto. haddaad aragto labada qiimo oo midka midig iyo midka bidix ay kala duwan yihiin 3 marka la weydiiyo laga yiraahdo 3 nafsad ahaanteeda limitka ay f(x) noqonayso muxuu yahay? waxaa leedahay does not exist ma jiro oo ma laga helayo meesha. okay, maxaa noogu xiga marka? waxaa ku xiga number waxaa la weydiiyey ff2 maxay la mid tahay? ff2 waata x markay 2 la mid tahay y maxay noqonaysaa? y waxay noqonaysaa soomaa 3 pointiga isugu imanayaan waa meesha 3 bay noqonaysaa. qiimaheeda waxaa waaye y maxay noqonaysaa 3. okay, waxaa la weydiiyey marka limitka
ffx markay x ay u soo dhowaanayso 2 dhanka midig ay uga soo dhowaanayso muxuu noqonayaa ffx ama y ay noqonayso okay waa ka khadka inta raacina mar walba aniga waxa ay xukuma khuduudda la siiyay khadkan markuu saas u socdo meesha isugu imanayaan maxaa waaye waa 3 pointiga isugu imanayaan maxaa waaye dhankan marka laga soo tago dhankan bidix marka laga soo tago oo negative-ka waxay noqonaysaa 3 meesha pointiga isugu imaadaan limitkooda labadooda wuxuu noqonayaa 3 okay markaan ka imaado waa tan ugu fududan oo kale mar haddaa aragta khad mustaqiima oo lagu siiyey 2 point iyo mathalan 3 iyo 2 limitkooda dhan walba wuxuu isku mid u yahay xataa 3 numberka 2 iyo 3 dhan walba waa isku mid dhanka midig haddii laga yimaado waa ffx waxay noqonaysaa 3 dhankan kale haddii laga yimaado ffx waxay noqonaysaa 3 haddii naf 3 la fiiriyo waxay noqonaysaa isla 3 tan waa tan ugu fudud okay limitka markaan fiirino dhanka bidix waxaan niri waa 3 marka la fiiriyo niri dhanka midig marka la fiiriyo muxuu noqonayaa dhanka midig marka la fiiriyo saan u soo dagaya ayadana waxay tahay waa 3 marka la fiiriyo nafs 3 2 nafsirka nafteeda marka la fiiriyo muxuu noqonayaa ayadana waxay noqonayaa x markay u soo dhawaato 2 ama totalka labadoodaba waxay isku noqonaysaa ayadana 3 yani marka labada dhinac waxoo dhan laga fiiriyo marna midiga laga fiirinayaa marna midig mar waxaa jirta limitka uu midig uu ka imanayo mar waxaa arkaysaa isagoo bidix ka imanayo haddii labadoodaas qiimayaashooda ay isku mid noqdaan hadda waa ujeedaa waxaad aragtaa dhanka midigna waa 3 dhanka bidixna waa 3 yani markaas dhanka bidix waa 3 dhanka midigna waa 3 markaas waxay la mid tahay limitka x markay u dhowaanayso 2na waxay la mid tahay 3 oo way jirtaa oo waa la helaya hadday labadan kala duwanaan lahaayeen waxaan dhihi lahayn does not exist ma jirto oo lama helayo insha allahu maanta darsi ugu horeeyay oo calculus aan ku qaadano oo ku saabsanaa limitka intaasaan ku joojinaynaa annaga waxaa soo qaadanayno waa waxyaabaha muhiimka ah yacni wixii aan isdhihi karno waxan waa wax ugu muhiimsan calculus hadhow markii aad ama barashadeeda ama iskoolkeeda ama u fariisato si aynan waxan kugu adkaanin ama aynan kugu noqonin wax cusub ama haddaa qaadatay ay fahamkooda kugu adkaayeen waxaan isku dayayaa bal inaan bayaaniyo intii karaankayga bal sidii si loo fahmo markaad waxaan u malaynayaa in un laga fahmay insha allah wixii commenti ah ama wixii tala ah ama wixii tusaale ah ama wixii xataa khalada oo aad ka aragto waxaad iigu soo qori kartaa videoga hoos ku yaala aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu